bulshada kaliya nahay waxa nasiib darro ah waxa laga xumaada soo noqodka dagaalada bariga beelaha isku dilayaan waxa looga xumaada weeyii dilka qofka naf la dilo oo naf ay ku baxdo waxa weeye qof aan maanta garanaynin ma jiro laakiin waa laga bareerayaa qof aan garanaynin ma jiro tollaa yaa reebalaay aakhira waxba qaban mayso waxba ku tari mayso iska barbartaagi mayso man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu qofku amalkiisu la haro tolkii waxba uma qabto qofka u dagaalamaya casabiyo iyo reernimo iyo tollaa yaa reebalaay raayid iyo calab noocaas hoos taagan waxa weeye waa nabiga kaleey salaatu wasalaam waa uu ka digay wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam da'uuha fa innaha muntina wa uraysa wa qabyaalada iyo reerku waa uraya iska daaya dhul banaan deegaan banaan dhul laba deegaana biyaan lahay beeraan lahay xoolo badan aan ku hadhin wax lagu noolaado badan ma ayna jirin in ummadiya dad lagu laayo nabiga wuxuu tilmaamay kaleey salaatu wasalaam labada muslim markay seeftooda soo yimaadaan falqaatilu walmaqtuulu fi an-naar ka wax dilay iyo kala dilay labaduba naar bay galayaan waxaan dareensanahay waxa la yiraahdaa dad badan inay wadaagaan inaan dadka deegaanka miyiga degan ee xoolo dhaqatada ah inuu ku koobnaan arintaas in magaalooyinka iyo dad ku tiirsan inay taageerayaan haddaan dadkaasi ayna joojinin oo nabad saalixiin ayna noqonin oo ayna muslixiin noqonin fitnadu ku koobnaan mayso kuwa miyiga iyo magaalooyinka jooga banaanada jooga magaalooyinka soo gali doonta hal doorka la raadsan doona hal doorka yaa la raadsan doona hal doorka marka raadsadana farahay ka baxaysa saadaradeed hal doorka waa waqtigoogii weey hadaynaan dajinin oo inaan ka shaqaynin dajinteeda waxa dhif fara badan ayaa ka imanaysa halis fara badan ayaa ka imanaysa amniga iyo ni'amka aynu haysano ee aan ku soo toosino lagu soo toosimaayo ninka ku fikiraya ee ceelaf weyn iyo darar weyn eeriyadaas ku koobnaanaysa fikirkaas waa fikir gaaban fikir dheer ma aha way ka talaabaysaa haddaba haday markii hore koobnay way ka fiday maalin ku dari doontaa baashuna waa basal lakab weey basal isa saaran marka mid rogtaba lakabka wareegu uu furmayaa waa in dareenka aan yeelano saadaradeed waa nasiib daro in xukuumaddu ay mutafarrij noqoto oo ay mushaahid kiraam noqoto oo ay daawato arinta noocan oo kala aqliga wax gali kara maaha mas'uuliyad xilba ka saaran laakiin ay dadka kale noqoto oo ay daawadaan oo ay arkaan kaliya oo gacan bir ay waxba ku qabanin mid shaqeynaysa maaha saadaradeed waa waqtigii bay gaadhay bir xadiida lagu qabanay arrimo noocan oo kala aan la eegan karin ayay taagan tahay walaalayaal allah ka baqno allah aanu noqono xariga ilaahay qabsano dhamaanteen allah toobad keeno